halkani waa meygaagle oo ka tirsan gobolka Doollo ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waana magaalada lagu soo afjarayo xurguftii dheereed ee dhex martay beelaha Cumar Maxamuud iyo Bahar Same colaadan ayaa muddo dheer soo laabatay balse waxaa la filayaa in halka ku soo afgoodo maadaama heshiiskani yahay kiigu adka abid ee dhex mara labadaasi beelood isimada dhaqanka oo ay kala hogaaminayaan garaadka guud garaad jaamac garaad cali iyo Islaam Bashiir ayaa kala hogaaminayay labada dhinac waxaana markiiba loo fadhiistay daminta colaadii baahsaneed ee dhex martay labadaasi beelood muddo dheer oo maalmo qaadatay kadib si gobanimo leh waxaa loo kala saxiixday heshiisyo iyo xal nabadeed oo rasmi ah qaar ka mid ah heshiisyadii ay kala saxiixdeen labada beeloodii waxay soo gaadheen xafiiska warqabadka telefishinka RTN ku leeyahay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool garaad jaamac garaad cali garaadka beelaha dhulbaahante iyo Islaam Bashiir ayaa goobta ka hadlay si adagna u sheegay in maanta laga bilaabo tallaabo adag laga qaadayo cidii wax dambe geysata nabadgeliyadu waa labo marna waa nabadgeliyadii in la xidho marna waa in la ilaaliyo maanta nabadgeliyadii waynu xidhnay labadii beelood ciidim ma xukumin ciidima dhex fadhiisan cidi xukunkuma ayan ridin iyagaa la isu daayay iyagaa xirtay nabadgeliyadii iyagaa ka wada hadlay iyagaa qodobadan iyo go'aamadan soo baxay isla gaaray oo isla qaatay oo qanaacad ku yeeshay iyaga waxaynu leenahay qodobadii aad soo saarteen qalbigiina ha u dego ha la weeleeyo ha la geeyo dadkii ay khusaysay kollayba Islaam Bashiir iyo aniga iyo isimada kale iyo labada tol hawl badan baa noo taalo sidaanu hawsha u weelayn lahayn dadka aan u gaarsiin lahayn ilaahay dukuri guri walba iyo geed walba iyo xero kasto oo geel jire iyo degmo kasta aan u gaarsiin lahayn waa hawl noo taala sidii isimadii iyo waxgaradkii inoo yimid ay u xiltireen hawshoodiina u qabsadeen heshiisna u gaareen iyagana waa u mahad celinaya khayr Allah siiyo runtii heshiiskaani wuu ka duwan yahay kuwii hore ee xaaladahan iyo dagaaladan deegaankan ka dhacay la isugu imaan jiray wuxuuna uga duwan yahay dadkii ay khusaysay iyo beelihii ay khusaysay ee heshiiskaani ka yimid isla markaas go'aankan halkan lagu gaaray cidii fulin lahayd baa go'aamisay waxa loo baahan yahay marka sidaas aad ugu heshiiseen oo ehelkiina marxaati ka yahay inaad u fulisaan annaguna haddii ilaahay idmo waa idinku xoojinaynaa gacanna waa idinku siinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu idin fududeeyo nabadgeliyadu hadda waa laga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay nabadgelyo daraduna dhibaatooyinka ay leedahay wax badan baa laga hadlay waxa loo baahan yahay in la shaqeeyo oo aan lagu koobin wixii hadda la isiiray oo aan warqadaha ku qornay afkana iska niri cid walbana meesha ay ku leedahay ay shaqadaas ka qaadato 11 sano oo ay colaadani gilgishay gobolada Sool Nugaal iyo Mudug waxaana ku geeriyooday ku dhawaad 80 ruux xamse raadeeye telefishinka RTN Laascanood